bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka muuqaalka ciyaaraha Raj Sports TV aad maalin walba ka daawataan waa maalinimo axada 20 bisha 3 ee Maars sanada 2022 qodobada xiisaha badan ee maanta barnaamijka ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona Antonio Rudiger oo la sheegay inuu heshiis la gaareen adiga Juventus qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona waxa la ciyaari doona mid ka mid ah kulamada ugu adag ee dunida kulanka El Clasico Real Madrid sidoo kale Barcelona qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona naadiga The Gunners Arsenal oo soo tigsatay booska afraad kadib guul ay xal gaartay qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan maanta waxaa ka mid noqon doona Paris Saint-Germain oo Lionel Messi laana caawan oo kay wajahaysa kulan ka tirsan horyaalka Liga Faransiiska qodobadaas iyo qodobo kale ee barnaamijka ku daawan doontaan kamana maqna ciyaaraha guud ahaan caawa laga ciyaari doono horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub aniga daahir ayaa barnaamijkeeda la socodsiinaya mar kale iyo barnaamijka muuqaalka ciyaaraha Raj Sports TV وهاجاك داوديال هاتنا qodobadaas oo faahfaahsan xidiga qandaraaskiisa ka soo ilaanaya garoonka Stamford Bridge ee ku ciyaartay waa tahay daawadayaal aan ku bilowno qodobadaas oo faahfaahsan xidiga Antonio Rudiger kaas oo jalisa qandaraaskiisa ka soo ilaanaya ayaa la sheegayaa inuu haatan heshiis la sii gaareen adiga Juventus ee ka ciyaartay Liga Kaashaha Talyaaniga xidigan oo garoonka Stamford Bridge ee ku ciyaartay waa Stamford Bridge ku ciyaartan adiga Chelsea waxa ka sii ilaanaya qandaraaskiisa waxaana naadiga Chelsea dhibaato haysta darteed aysan xidigan qandaraaskiisa u kordhi karin waxaana xidigan la sheegay in naadiga Juventus markaasi ku biiri doono marka xilli ciyaareedkan dhamaado xidigan ayaana kooxo badan baacsanayeen sida naadiga Barcelona oo tartan adag ugu jirtay xidigan Manchester United ayaa laftirkeeda doonaysay xidigan inay naadiga Chelsea kala wareegto balse xidigan ayaa jeclaystay inuu markaan ka wareego horyaalka Premier League Ingiriiska asagoo ku sii jeeday horyaalka Talyaaniga gaar ahaan garoonka ku ciyaartan adiga The Old Lady Juventus waxaana Juventus ay sheegtay inay ku kalsoon tahay in xidiga Antonio Rudiger uu markaan in adigaasi ku soo biiri doono xilli ciyaareedka markuu dhamaado Chelsea ayaana la ogeyn sida ay ka yeeli doonto heshiiskan adiga ay la gaartay waana adiga Juventus ay la gaartay Antonio Rudiger waxaana Chelsea dhibaato dhaqaale darteed aysan awoodin inay xidigan sii ceshato haddii aysan wax isbedelin markaasna dawladda UK aysan cunaqabateynta ka qaadin adiga Chelsea dhanka kalena caawa waxa la ciyaari doona mid ka mid ah kulamada ugu adag ee dunida kubadda cagta laga ciyaaro kulanka lagu magac daray El Clasico dhexmaranaadiyaasha Blaugrana sidoo kale Los Blancos Real Madrid ayaa caawa lagu ciyaari doona garoonka Santiago Bernabeu oo ku ciyaartan adiga Real Madrid kuna yaala caasimada wadanka Isbaanishka ee Madrid waxaana kulankan oo ka tirsan horyaalka La Ligaha caawa fooda isku dari doona labada naadi Carlo Ancelotti sidoo kale Xavi Hernandez ayaana waxa caawa awoodooda lagu tijaabi doona garoonka waa Santiago Bernabeu waxaana naadiga Barcelona 15 dhibcood ka dambeysay hogaamiyaasha Real Madrid ee horyaalka hogaaminaysa markaas ay doonaysaa inay soo yareyso farqiga dhibcaha waxaana Barcelona iyo Real Madrid la xasuustaa in ay gabi ahaanba kulankan ay ku soo loolamayeen muddo 100 sano ku dhaw waxaana Real Madrid ay tahay naadiga ugu badan ee kulankan guul gaarta 100 guul ayayna ka gaartay naadiga Barcelona waxaana xusuus mudan in shantii kulan ee ugu dambeeyay kulanka El Clasico dhamaantood ay ku awood roonaanaysan naadiga Real Madrid waxaana Barcelona sanadihii dambe ay ahayd mid sii leecaysa laakiin xidigii hore ee naadigaasi macallin Xavi Hernandez ayaana kooxdan soo kabkabay oo markaasi soo toosiyay waxaana Barcelona 12 kulan ee ugu dambeysay ay ahayd unbeaten waxaana la xusuustaa inay meel fiican ka joogto tartanka ay ka qayb galaysay markaasi UEFA European League walow la xusuusto ay ka soo hartay UEFA Champions League waa gruubyadana markaasi ay ku soo hartay Barcelona ayaana doonaysa caawa inay soo yareyso farqiga dhibcaha waxaana la sheegayaa ciyaartan inuu sheegi karo xidiga goolaliyaha ugu sareeya horyaalka La Liga dalka Spain ee Karim Benzema waxaana taasi ay tahay dhabarjab weyn ama ay dhabarjab weyn ku tahay naadiga Real Madrid oo doonaysa inay sii adkeysato hogaanka horyaalka oo markaasi naadiga Sevilla ay kula dagaalamayso Barcelona ayaana sidoo kale doonaysay inay sii xigsato kaalinteeda saddexaad oo markaas Real Betis iyo sidoo kale Atletico Madrid ay kula loolamayaan waxaana tani ay tahay mid ka mid ah tijaabooyinka ugu adag oo mari doono macalinka Xavi Hernandez kaas oo xidigii hore Barcelona kana mid ahaa
mu'alifiintii qidadii tika taakada ee Barcelona ay caanka ku ahayd waayo badan ah dunida kubadda cagta ay ku maamushay. Xavi ayaana sheegay caawi inuu u dagaalami doono inuu 3 dhibcood ka qaato Real Madrid, balse lama oga waxa uu kala kulmi doono rogcadaaga Carlo Ancelotti. sidoo kale xidigihiisa diyaar ka waa inay difaacdaan ama ay ku guuleystaan horyaalka La Liga dalka Spain siina xafitaan hogaanka horyaalka. Real Madrid haddii laga badiyo waxaa qalqal gali doona hogaanka horyaalka oo nadiga Sevilla ayaa dhibic qoro u soo jirsan doonta, halka Barcelona haddii laga badiyana caawa ay khatar ugu jirto inay weyso booskeeda afraad. dhanka kalena xulka qaranka Soomaaliya Ocean Stars ayaa shalay gool darro ka qaabileen naadiga Azam ka ciyaarta wadanka Tanzania kulan tijaabo ah kaas oo waa wadanka Soomaaliya isugu diyaarinayay kulanka uu la leeyahay wadanka Sweden isreereebka tartanka qaramada qaaradda Afrika sanada 2023 kaas oo lagu martigeli doono wadanka Ivory Coast, waxaana Soomaaliya 3 gool markaasi gool darro ay dhabarka loo saariyay. kulankan oo ahaa kulan saaxiibtinimo ayaana waxaa markaasi guuleystay naadiga hogaamiyo macallinkii hore Caawiye Maalin Horseed Macalin Cabdixamiid, isagoo sheegay in markaasi aysan muhiimad u lahayn guushani balse muhiimada koobaad ay tahay in xulka Soomaaliya markaasi tijaabo la mariyo. waxaana macalinka reer Dhaaje xulka Soomaaliya hogaaminaya uu sheegay in ciyaartoyda wadanka ay markaasi aysan tixgelin ama aysan dhaqan gelin wixii uu kala soo dardaarmay ka hor ciyaarta. waxaana sheegay in ciyaartoydu markaasi isku dhaxyaac badan ka muuqday shalay, ayadoona markaasi uu tijaabiyay ama macalinka uu sameeyay bedel fara badan taasoo keentay in Soomaaliya ugu dambeyntii 3 gool iyo gool looga badiyo, waxaana goolasha ay ahaayeen kuwa qaladkeeda ay laayeen ciyaartoyda Soomaaliya. horyaalka Premier League Ingiriiska kulamo ayaa caawa laga ciyaari doona, sidoo kale xalay kulamo ayaa la ciyaaray. naadiga The Gunners Arsenal ayaa guul gaartay, waxaana naadigan ay booskeeda afraad ka xafidatay naadiga Manchester United, waxaana Arsenal markaasi gool ay ka heshay Bukayo Saka ku badisay. Arsenal ayaana markaan doonaysa inay sanadan ka soo qayb gasho tartanka UEFA Champions League. naadiga Chelsea ayaa tartanka FA Cup sidoo kale semifinaalkiisa u gudubtay, waxaana markaasi naadiga Middlesbrough ay ka soo reebtay tartankan naadiyaasha Manchester iyo sidoo kale Tottenham markaani Chelsea ay ka badisay. waxaana caawa sidoo kale Southampton iyo naadiga Manchester City ay ciyaari doonaan tartanka FA Cup-ka. Liverpoolna waxay garoonkeeda ugu tagi doontaa naadiga Nottingham Forest. horyaalkaasi waa wadanka ka ciyaartay Ingiriiska horyaalkiisa labaad, waxaana ay doonayaan inay Chelsea kula midoobaan semifinalaha tartanka FA Cup-ka sanadan. horyaalka La Liga dalka Spain kulanka ugu xiisaha badan waa Real Madrid iyo Barcelona, sidoo kale Talyaaniga Roma ayaa caawa waxay la ciyaari doontaan naadiga Lazio, Salernitana Juventus ayaa caawa la ciyaari doonta. horyaalka Liga Faransiiskana Paris Saint-Germain oo Lionel Messi uu ka maqan yahay naadiga Monaco ay wajihi doontaa, waxayna Paris doonaysaa inay sii dheereyso hogaanka horyaalka Liga Faransiiska. guud ahaan intaas ayaan jeclahay daawadayaal inaan kusoo gabagabeeyo barnaamijkii muuqaalka ciyaaraha Sports TV aad kala socoteen anigoo daayira barnaamijkeena la socodsiinay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.